وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimana waxaa kamid ah muran xoogan oo ka dhashay kursiga uu maanta ku guuleystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamulgoboleed intaba oo ka hadlay arrinta kursigaasi iyadoona ay guddigu shaaciyeen in kursiga uu yahay mid sharci darro ah dibna loogu laabanayo doorashadiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maanta ku guuleystay kursiga nambarkiisu yahay 138 ayaa waxaa diidmo qayaxan ka keenay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo mid maamul goboleed intaba sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameynayaa sida warbixino hoose sheegayaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Galmudug oo qaraabo dhow la ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadana warbixin ayaan idinkaga haynaa dhinaca kale xildhibaanadii ugu badnaa ee maanta ka soo baxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo intooda badan ay ku guuleysatay filo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo caawa guul kale ka soo hooyay Galmudug iyo rajooyinka doorashooyinka halka ay marayaan ayaa warbixinteena si toos ah ugu faaqidi doona halkee ayuu marayaa shirarkii uga socday mucaaradka magaalada Nairobi iyo Abu Dhabi iyo warbixino sir ah oo laga helay qorshaha uu la damacsan yahay mucaaradku madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale jawaabta filla Soomaaliya ay doonayso inay ka bixiso doorashooyinkii oo isku dayayaan inay baajiyaan iyo madaxweyne Farmaajo oo ku dadaalaya in 25 bisha lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka isagoona dhawaan shaaci doona inuu yahay musharax madaxweyne waa maxay qorshaha roob uu ku maleegayo magaalada Nairobi maxay sadamacsan yihiin asaga iyo kooxdiisu barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan xaaladda magaalada Beledweyne iyo safarkii Axmed Madoobe uu ka tagi lahaa magaalada Jowhar oo markale soo cusboonaaday Cali Guudlaawe iyo madaxweyne Farmaajo oo qarka u saaran inay isku dhacaan kadib markii amar diido uu keenay Cali Guudlaawe inuu imaado magaalada Muqdisho heshiiska Cali Yare iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo hadda saacado ka hor la dhameeyay iyo Cali Yare oo caawa tagay magaalada Dhuusamareeb si uu uga qayb qaato doorashada kursiga Hob 147 ayaan barnaamijkeena ku faaqidi doona qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid kursiga nambarkiisu yahay Hob 138 ayaa waxaa maanta ku guuleystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir balse guddoonka doorashooyinka qaranka heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa arintaasi ka diiday kadib markii beesha kursiga ay maanta dacwad ka gudbisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadoo la sheegay inuu si xoog ah ku qaato kursiga beesha kursiga iskale ayaa horay u diiday in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay doortaan balse waxay warbixinadu sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur afar xildhibaan oo la tartamaysay oo kor uga soo xiray guriga isagoona haweenay kamid ah dadka taageerihiisa la tago hoolka sidaana kursiga uu ku qaatay odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeeda Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo beelaha uu kursiga kala dhaxeeyo ayaa codsi u gudbiyay guddiga doorashooyinka qaranka iyadoona ay codsadeen in dib loo celiyo kursigaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuurna uusan si ansax ah ugu guuleysan guddiga ayaa maanta ku dhawaaqay in kursigiisa la hakiyay iyadoona ay sheegeen in baaris lagu sameynayo dhacdada shalay ka dhacday iyagoona sheegay in baaris lagu sameynayo dhacdada maanta ka dhacday hoolka doorashooyinka qaar kamid ah musharaxiinta la tartamaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kursiga uu ku qaatay si awood ah iyadoo ay tahay arin aan horay uga dhicin Cabdiraxmaan oo markii hore kulan la qaatay madaxweyne Qoorqoor iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Galmudug ayaa ku wargeliyay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa sidaana kursiga looga haro aan laga daba imaan balse odayaasha deegaanka oo arinta ka dhiidiyay ayaa dacwad ku gudbiyay walow ilaa iyo hadda jawaabta ay bixiyeen guddoonka doorashooyinka qaranka ay tahay in arintaasi baaris lagu sameyn doono haddii ay soo cadaan doontana dib doorasho loogu celin doono kursigaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maanta ku ceeboobay hoolka doorashooyinka iyo ficilka uu sameeyay ayaana weli si toos u cadeyn inuu musharax yahay iyo inuu iska dhaafay arintaasi balse xogo hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir uu ka haray ama ka tanaasulay doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhacaya dalka isagoona ka doorbiday in madaxweynaha soo baxo uu ka raadsado
xilka wasiirka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa 4 sano taageerayaashiisu ka rajeynayeen in uu mar uu noqdo madaxweyne, balse maanta ayuu soo gabagabeeyay hankoodii isagoona ku soo afmeeray inuu kursi ka xooga beeshiisa. waxaase ceeb ah in weli looga dabatagay kursiga oo aan looga harin. wixii ka soo baxana barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan. dhinaca kale Caliyare Cali iyo madaxweyne Qoorqoor oo khilaaf soo kala dhex galay labadii bari ugu dambeysay ayaa arintii lagu soo dhameeyay isafgarad, iyadoona loo ogolaaday Caliyare inuu ka dago magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka Galmudug ee joogaan beelihiisa, iyadoona dhawaan kursiga Hob 147 lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb. khilaaf xoogan ayaa sida la sheegay soo kala dhex galay Caliyare iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. arinta ayaana lagu saleeyay Caliyare la sheegay inuu la saftay 3 bilood ka hor dagaalka ka dhacay magaalada Guriceel ee u dhaxeeyay Ahlu Sunno iyo maamulka Galmudug, inuu taageero xoogan miidiyaha uga fidiyay maamulka Ahlu Sunno, isagoona sheegay in arinta wada hadal lagu dhameeyo walow Qoorqoor uu door bidayay inuu dagaal ku qaado Ahlu Sunno. arintaas ayayna filla Soomaaliya ka damacsaneed in aan loo soo adeegsan ururka hubeysan ee Ahlu Sunno, walow markii dambe dagaalkii uu noqon waayay mid baaqda oo sida dagaalka qorxay. haddaba Caliyare iyo sidoo kale madaxweyne Qoorqoor heshiiska la heshiisiyay ma noqon doonaa mid miro dhal ah? waa qodobka aan doodeena ku qaadaa dhigi doono. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa khilaaf xoogan soo kala dhex galay kadib markii Cali Guudlaawe uu diiday inuu imaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. khilaafkan ayaa salka ku haya kadib markii filla Soomaaliya ay xamar u qaaday xildhibaanadii ka soo baxay magaalada Jowhar iyadoo aan wax amar ah ka haysan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen. warbixintan ayaa soo shaac baxday kadib markii maalmo ka hor Cali Guudlaawe looga yeeray magaalada Muqdisho isagoo arinta ka dhagaadeegay kadib markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu isku dayay inuu imaado magaalada Jowhar si uu ula hadlo arrimo siyaasadeed. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe filla Soomaaliya ayaa amar ku bixisay Cali Guudlaawe inuu ka soo dego magaalada Muqdisho si ay uga arrinsadaan xaaladii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee ka dhacay dalka. ugu horeeyo damaca Axmed Madoobe uu ku doonayay magaalada Jowhar inuu yimaado oo ay baajiyeen filla Soomaaliya. haddaba warbixino ay helayna ayaa sheegaya in khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo Cali Guudlaawe hadda lagu dhex jiro oo ay dhowdahay in laga heshiiyo. Cali Guudlaawe ayaa aad ugu xumaaday in xildhibaanadii lagu doortay magaalada Jowhar uu madaxweyne Farmaajo ku aamini waayay xamar u raray guryana uga dhisay. haddaba Cali Guudlaawe oo arinta ka xumaaday ayaa hadda la xaliyay tabashadii uu ka qabay madaxweyne Farmaajo, waxayna warbixinadu sheegayaan in Cali Guudlaawe uu ogolaaday inuu tago magaalada Muqdisho si loo dhameystiro inta ka hartay heshiiskii doorashooyinka ee ka dhaxeeyay xulafada madaxweyne Farmaajo ee lafta gareen Axmed Qoorqoor iyo sidoo kale Cali Guudlaawe. haddaba halka waxay nooga wararkeena habeenimo fudan daawo haddii tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena Calanka TV, subscribe oo furo gambaleel ka si aad noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena.